runtii shafay ii tahay inaan mar saddexaad aan u soo istaagno soo dhoweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed iyo wafdigii ballaarnaa oo la jiray booqashadii qiimaha badnayd safarkiisa ugu horreysay ahaa uu nagu soo booqday dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan caasimadii ku-meel gaarka ahayd sharafay ii tahay marka ugu horreyso waxaan rabaa inaan iraaho madaxweyne soo dhowow adigii wafdigaadaba mar labaad iyo mar saddexaad soo dhowow aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay booqashadan taariikhiga ah ee aadna soo booqatay aad baana ugu faraxsannahay raallina uga nahay aniga oo ku hadlayo magaca iyo dowladda iyo shacabka reer koonfur galbeedba waxaan farxad weyn iyo sharafba noo ah imaatinka adigiyo wafuuddaadaba aan noo timaadeen waxayna noqonaysaa sidaa hadda looga sheekeynayay 2012 yaa berrina looga sheekeyn doonaa taariikhday geli doontaa madaxweynihii markii la doortay markii ugu horreysay uu booqashada naga bilaabay sharafay noo tahay intaas kadib mudane madaxweyne isaa la socoto dowlad goboleedka koonfur galbeed waa 3 gobol oo istiraatiijig ah waa baay bakool iyo shabeellada hoose 3 gobol kadib baaxadda dhulka iyo ballaarnaantiisa dowladihii annaga naga horreeyey waxay u suubiyeen 18 degmo iyada oo aan aaminsannahay dadka iyo populationka iyo inta ay isu jiraan iyo dhulka ballaarnaantiisa inay ahayd 30 degmo inay astaahish waxaad arkaysaa 200 iyo ka badan oo kilomitir oo dhagaxi loo tuuro uusan dhulka ku dhacaynin oo qof bini aadan uu ku dhacayo oo hal 2 degmo u dhaxaysa bas yaa jirta waxaa jirta meel 300 kilomitir isu jirto oo aan degmo dhanba lahayn meel 120 kilomitir jirto marka sidaasoo tahay markii dowladihii horreeyey waxay ahayd 18 degmo 18kii degmo 14 degmo ka mid ah waa xor waxaa gacanta ku hayo dowlad goboleedka koonfur galbeed 4 ka mid ahna waxay gacantooda ku jirtaa cadowga shabaab 2 shabeellada hoose ah iyo 2 bakool ah rabdhuure iyo tiyaglow waa bakool sablaale iyo kurtuwaareyna waa shabeellada hoose 2 degmaa maqan 4 degmaa maqan inta kale waxay ku jirtaa gacanta dowladda koonfur galbeed waxaa ka shaqeeya maamulka koonfur galbeed waxaa u dhisan maamul waxay leedahay golihii deegaanka kuwa aan lahayn hadda loo suubinaya waxaa jooga ciidamadii dowladda waxaa ka shaqeeya systemkii dhibaatada ugu weyn oo haysata waxaa weeye magaalo maanta uu baabuur galayo waa 1 iyo 2 waaye waa mid dadka jidkan dheer degan degmooyinka koonfur galbeed oo jidkan xamar ka soo baxo baydhabo taga degan oo iyagana ay maraan dad ganacsato ah oo ka madax bannaan inta kale magaalo baabuur geli kara male magaalada ugu yar 12 sano 11 sano yay go'doon tahay magaalooyinka gobolka bakool oo dhan xudur yaa ugu dambeysay muddo 1 sano ah hadda waxay gashay inuusan baabuurba gelinba awalkii hore si kasta iyo daruufo ay ku yimaadaanba waa imaan jireen sidaasoo kale magaalooyin kale oo saasoo kale aha jiro xor ah laakiin baabuur aan gelayn dadkaas waxay ku nool yihiin nolosha bini aadanka nolosha ugu adag gaari dameer yaa wax lagu qaadayaa haddii la qabto dameerka iyo gaarigaba waa la gubaa si naxariis darraa ninkii watay hadduu fakada nasiibuu leeyahay haddii kalena waa lagu daraa mudane madaxweyne duruuftaas guud waa waxay soomaali oo dhan qabto laakiin annaga shakhsiyan taasaa gaar noo ah waxaana aada u danaynaynaa oo aan adduunyada iyo dowladda federaalka iyo cid kastoo hay-adaha amniga ka shaqaysa aan ka codsanaynaa mid guntan baa loo gargaaraa baa la yidhi
dadaallo badan oo abaabul ciidan iyo wacyigelin ah waa samaynay waxaan u baahannahay taageero caalami ah iyo taageeradii dowladda federaalka inaan helno si dadkan ay uga baxaan dhibaatadan muddada dheer saamaysay waxaa laga yaabaa wiilkii ku dhashay waajib oo 12 sano go'doon ahayd oo aan arkin baabuur socdo haddii 3 sano uu ku sii jiro 15 sano gaaray qaangaar wuxuu aaminayaa weligeed inaysan meeshan baabuur imaan yuu aamina oo jidba in lahaan jirin uu aamina in looga sheekeeyo moogiin si marka daruurtaas looga baxo waxa ugu horeeyo oo aan codsanayno waxaa waaye in nagala kaalmeeyo nagula garab istaago nagalala shaqeeyo amniga sidii lagu soo celin lahaa shabaabna dalka looga xoreyn lahaa dadkan iyo jidadkoodana la isugu furi lahaa daruufahan adag oo macaluusha iyo abaarta iyo barakaca waxa keenay oo ugu horeeyo ayaga koowka ilaahay baa keenay laakiin waxaan aaminsanahay dadkaas dad nool oo beerahooda tacbado oo haddii sanadkan abaar uu noqdo sanadkii hore tii ay tacbadaan u baxsaday ahaan jireen sanad iyo lababa dad samri karay ahaayeen tacabkooda ku filnaa waxay awoodi waayeen oo loo diiday inay beerihii tabcadaan sababtoo ah tacabkiiba waxaa la yidhi markaa tacbaysid waa inaad lacag bixisaa markaa falaysid waa inaad lacag bixisaa markaa goynaysidna waa inaad nus lagaa qaadaa qofkii marka wuxuu ku dhimanayo uu tacbaayaba ma leh waxyaalaha keenay barakacan tirada badan taas waa abaarta iyo cunniyarada iyo biyo-la'aanta qof kasta isagoo meeshiisi joogo yaa loogu gurman lahaa waxa maanta intay soo baxeen dadkay u soo qaxeen baydhabo waxaa lagu qiyaasay hay-adaha UN-ka tirakoob ay suubiyeen 700,000 oo kun oo qof oo IDPs degan kaamanka meel kastay degan yihiin waxa keenay dadkaas waxaa waaye dowlad baa leeyahay haddii deegaanadii ay ka soo qaxeen oo noo sheegayeen maanta iyo kuwii kaloo meelihii ka fogaa ka yimid haddii daruurtaas ay qaban lahayd waxaan awoodi lahayn hadday biyo la-aan yihiin biyo meesha ay yaallaan intaan booyad ku qaadno inaan u geyno waa loo diiday in loo gurmaday hadday baahi jirto in xoolo loo qaado raashin wixii la aruurin karo dadka ay isu dari karaan loo gurmado loo geeyaa la awoodi karay wixii kaalmo ah gurigoodii deegaankooda lagu kaalmeeyo ama hayad samafal ha ka timaado ama dadka Soomaaliyeed ha ka yimaadeen yaa la awoodi karay wixii laga awoodi waayo oo dadkaas wax laga gaarsiin waayo waa saas waxa maanta baydhabo la isugu keenayna la isugu yimidna meeshan nabad ah unbaa kulli la wada dukaalaha sidaas darteeda maanta baahida aan qabno 1 2 3 waa amni waaye dadkan oo guryahooda ku noqdo jidadkooda loo furo magaalooyinkooda isu maro intaas waa baahida aan qabno qof bini aadana wuxuu bixiyay qof bini aadana kuma baahi bax dadka maanta aan sheegayno 700,000 kun hay'ad iyo dawlad iyo cid kasta oo wax siiso waa waxay maalin iyo laba karsadaan wax micno ah iyo mustaqbal ay u suubinaysa male waa un emergency waaye dadkan dhiig joojina la yiraahdo laakiin dadkii waxay u baahan yihiin mustaqbal haddii ay magaaladii degayaan waxay u baahan yihiin in la deegaameeyo la dejiyo ay helaan nolol iyo shaqo abuur iyo mustaqbal iyo ilmo iyo iskool iyo qofkan bini aadanka meel u aado inuu helo intaasna waxa laga sugayo dowladnimada waaye dowladda iyo nidaamka federaalka ah waa dabaq waaye waa isii saareen hoos uu ka soo bilaabanaya ilaa iyo meesha ugu sareyso tagaya midaas ayada aan rabnaa marka hadduu ilaahay yiraaho wixii dadaal oo la suubin karo in la suubiyo dadka Soomaaliyeed oo dhan oo dhibaatadaas qabana loo gurmado gaas ahaan dadka reer Koonfur Galbeed oo suldaanku intuu ka sheegay ugu horeeyay dadka mas'uuliyiinta ah xildhibaanada cusub wasiirada kuwa Koonfur Galbeed ganacsatada dadka aqoon-yahanada oo hay'adaha kala duwan ee dawladda u shaqeeyo waxaa la yiraahaa nin guntan baa loo gargaaraa horta marka hore annaga aan iskaalmeyno si ilaahayna noo kaalmeeyo ilaahayna noogu naxariisto annaga aan isu naxariisano walaalaha annaga waxaan u tari karnaa u tarno ninkii $2 haysta $1 ha bixiyo ninkii 2,000 haystana 1,000 ha bixiyo ha gaarsiiyo dadka walaalihiisa waxaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naxariistiisana siiyo laakiin sida saadaasha iyo dadka ay sheegayaan baqdin waxaa jirta ah raxmada ilaahay lagama quusto ilaahay baan naxariis badan ka sugaynaa ayada oo ogtihiin oo la leeyahay roobka waa u dhamaaday
markii aan 2 maalin inta baxnay banaanka la tagay si niyadsan ilaahay lagu bariyay ilaahay roob waa nasiib waa la qaboobay biilaantina waa laga baxay laakiin roobkii beerihii iyo baadiyihii iyo abuurkii ku filnaa ma ahan mid kaloo ka badana ilaahay ka tuugayna haddaan intaan qalbiga isu furno si islaamnimo ah dad muslim ah nahay qadarta ilaahay waan ku qanacsannahay wixii dhacaan aaminsannahay dadaalka annagaan ku daraynaa laakiin haddaan intaan qalbiga isu furno si kalsooni ku jirto walaalnimo ku jirto muslimnimo ku jirto aan isu gargaarno oo isu garab istaagno wax weyn dowladda la sheegaayo waxay kuma soo degaayo cirkana kama soo dhacayo dowladda waa dadka waay adinka waa dowladnimada wixii adinka aad suubisaan iyo wixii adinka aad nala qabataan yaa qabsoonaynaa annaga gaarsiinaynaa wixii dadkan ay bixiyaanaan dadka gaarsiin karnaa oo annagana aan wax ka qaban karnaa laakiin wax gooniho aniga ugu soo daadanayo ma jirto aniga waajibka isaaran waxaa waaye in si ilaahay og yahay diinta iyo culummadana ay sheegeen si qalbi furnaan ah oo lilaahi ah oo daacadnimo ah oo mas-uuliyad ku jirto aan dadka aan u gaarsiino wixii ay hayeen aan uguna shaqayno ugu adeegno tii ayada ahayd waa ballan qaadaynaa kor iyo hoosna waa u qaylinaynaa meel kasta oo qayladaanada ay gaari kartana waa gaarsiinaynaa waxaana rajaynaynaa in laga baxo intaas markii laga tago annaga intaan sheegay waaye koonfur galbeed waxaa la yidhaahaa oyna tahaybo waa populationka ugu badan isteydyada soomaaliya maanta koonfur galbeed shacabka ku nool 2 isteyd isku daray hataa ayagaa ka badan ama waxa haysteen ama yaysan haysanin ninka ugu waxyar wuxuu haystaa wuxuu maanta iyo berri cuno kan ugu yar marka kan maanta iyo berri wuxuu cuno haysto tan berri ilaahay baad leedahay waa helaysaaye maanta kan aan wax cuno haysanin in la siiyaan rabnaa marka annaga aan isku naxariisano marka ilaahay naxariistiisa imaanayso mudana madaxweyne mar labaad soo dhawow waxaan jiro baahiyo guud oo siyaasadeed oo stateka iyo shacabka iyo dadka uu mas-uulka ka yahay dowladda federaalka laga tabanayo adiga haddaa lagu soo doortay waa ku soo dhaweynaynaa waa ku faraxsannahay waxaan rajaynaynaa inaad noo cadaalad fashi waxaan rajaynaynaa rajadaanada iyo dadkan waxa ay kaa filayaan inay kaa helaan insha allahu tacaala mudana madaxweyne soo dhawow aad iyo aada u mahadsantihiin dadkii iyo fuudii kula jirtay iyo mas-uuliyiintii kula jirtay oo reer koonfur galbeedna saasoo kale aaday u mahadsan yihiin si guud waxaan baaq ugu dirayaa mar labaad aan rabaa inaan ku celiyo dadka reer koonfur galbeed meel walba ay joogaan ugu horeeyaan dadka hadda inta fadhiyoona arkaayo kuwa dibadaha jira kuwa hadda hurdaayo kuwa soo jeeda dadka walaalihiina ah xilliga waa sii adkaanayaa u soo gurmada ninka ugu yar hadduu isleeyahay wixii adiga aad dhiibto ree hebelaa la siinayaa asaga ha siiya kii la dhashay wax weyn waaye ayadana turkeeda wax tarayoo kii kale dad guddi ahaa la suubiyey culummo ah ganacsato ah dowladda qaar ka mid ah yaa joogo wixii taakulayn oo la bixin kara ha la bixiyo xildhibaanada sharafta leh oo 77 xildhibaan ah intii waxaan codsanaynaa xaaladan adag lagu jiro inaad shirtaan isku noqotaan dadkiina gurmad u bixisaan haddiiba mishaarba uu jiro waa aaminsanahay inaad mishaar heli doontaan mishaarkiina dadkiina inaad ku sadaqaysataan sidaasoo kale dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo waxaysta ayagana waxaan ka rajaynaynaa inay meel walba oo soomaaliya dhibaato ka jirta u gurmadaan adduunyada iyo dowladaha iyo cid kasta oo awoodi kartana baaqaasaan u diraynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudana madaxweyne soo dhawow